السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد مير ودنيا في جوتان ودي السلام يا كوسو دواada فيديو kale maalin kale dalka China insha Allah. Videogan maanta waxa weeye video Soomaalida ku dhaqan magaalada Guangzhou jaaliyada ah ee ganacsatada ah ee ardayda ah ayaa maanta meel ku wada kulmi doona isku iman doona insha Allah. Ajendaha laga hadli doono hawlaha soo dhigna halkan aad ka socon doontaan. Sidoo kale goobta lagu kulmayo oo ah restaurant kaas oo ay iska leeyihiin ama iska leeyahay insha Allah walaal Soomaaliyeed Maxamed Arche insha Allah dowladii ka leeyahay halkanaad nagala socon doontaan wixii meesha laga wada hadlayo iyo kulankaas sidoo dhacaba ina marsha. كيسن شهر العرفة عيد الأضحى إلى المارت فرحات هذا سومالو سيجمع أول ما ذكر مارت رك بدن عصبة مجالات عصبية رك ولو يجوا يجري رك كورونا كان بدي أنت ما مارت إن حال لو يجمع لو صنعوا لو هذا كلمه لو فرحات لو ذاقوا ده كان إسقارين إنه عصبنا ده كويس كبرتان ليش المارت وعنا كوميونيتي سومالي اللي ده لما تروحين وصارنا هذول magaalada Guangzhou waxyaalaha ma artay magaalooyinka loo wanaagsan tahay waxa weeye in ummadeedu ay saysato maartay haday dhibta iyo haday dheefta iyo haday farxad tahay intaba inaan tiisi xoojino in maartay maanta jaaliyada la isku kan wacay farxadan iyo maartay iyo xafladan maartay waxa qabaqabadeeda iyo budigeeda iska lahaa walaalkeen Calatosh إلهي سبحانه وتعالى أجل احترام الله كسير أنت ناس واحد أسبوعك يا روحي تمام كنا ضد سكودا خنصنا إن النادي الصومالي إسلام مركانا هل ملمات سكودا فرحنا هل ملمات سكورة يسنا كنا ورثنا هذا ما دام على عطش بدي مارتي يسقي محمد هذا يعني وأنا كجونا وعن لا مات على عطش فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كده وقت دمانتي وما سنتين جزاكم الله خيرا. عيد مبارك كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. طبعا المضمر كان اللي سويتي مع ضوء الامور يسموها واسكوات والبا هو كلكم هيسكتوا لكن مالنا فرحدا مالنا نال سوني مالنا اسوا رئيسنا بل يا جو يا مكان مدن ولا كلام انا يعني تقريبا 3 سنه وصوت عافيه 2019 ugu dambeysay isarag iyo dadka isbuuc marka bal waxaan isii armiga ku badan tahay fursadan ciida in laga faa'iideysto khiyaartii joogtay lees arko hal habeen bal hayanu min saaca bal saacadan aan xooga kala warqaaday wujuudan wada quruxda badan ee caawimaasha soo timin waxay muujinaysaa sida loogu heelan yahay inkastoo dad badan ay naga maqayeen caawa aan jeclayn inay ilaa loo boqol oo yimaadaan haddana maysan dhicin laakiin duruuf ma aysan isleeyahay أنا ما مركنا نيجي شغلنا كجالية أهان إن شاء الله ولي هذا كذا بيو إنه هوليه نقدر بيلين دونه بدومي هو نجم كان خير الله سيريلو وكم كان يسألني يو بدي إنتي جوتي إنتي كلام أنا أسوأ يسمى دونه كده من يجي لوسو والحديد دونه بروحي هو ما يعني ولا كمان كرنا يوحي عثمان هذا وحكى له رمنا إسبدل بدلنا دعاي وشاينا كدعاي هالنقطة ودن كقانون هالنقطة ودن كحتى ملشة هالنقطة ودن كي قانون كي حفيزي كل تاسن إن شاء الله وحرجينا يا دتك نوع دولارو معلومات كاسعين نلو داقي دونا إن شاء الله وخير الله ينسي سيدا بسوا أجنتين سيدا بنوع أكبر شيف
waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad iska warqabka iyo wax isdhaafsiga waa waxa ugu muhiimsan ee ganacsato ama ummad meel joogto lagu og yahay marka taas insha allah waxaan rajaynayaa in horena way u jirtay haddana la xoojiyo inteena caawa isku cusubna isbartaa inta naga maqan insha allah waa aan raadino kulankan kulan ka weyn na inaan qabsano kolley waqtiyada ugu fiican oo ugu munaasabsan oo jaamka iyo culayska badan uusan jirin howlahan ay kala fudud yihiin insha allah aada u mahadsan tihiin guddiga inta ka joogto waxaan leeyahay idinkana waa mahadsan tihiin qabaqaabinta iyo walaalkii abubakar qadar waxaan leeyahay maxqadar waa ku mahadsan tihiin sida aad u gaarsiiseen iyo qaabka aad ugu soo dhalasheen dowrkii idin laga filayo waa mahadsan tihiin jazakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أصبح ولكن على عطش. سيدا أود أقصون هاي ما أنت مجالدا كوانجو. ضدكم ما تروحي أبديهين. ما أنت مجالدا كنا خندنا ليرو. مرة ربنا ما كنا ليرو مجالك صوباتو. ما رتاي وهاويان ما رتاي فتنكي يبردو إسكاباتا. مرة بعدين هذا هالدور أما community وعي جريه وحوش شيء دردارمية. maarata waxa weeyaan maadina wadadii laga baxa laga yaabaa marka kelmad dardaarana iyo wax sheega ayaan waxaan ku codsanaa laba kelmad inaan noo soo jeediyo adeer xareed falyatafadal dardaaran bismillahi rahmaani rahiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam أولاً تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يباركيو وحن جوجنا ميل أنو أنمت شقاء بليه هني أنكسر تكني وحنو دقني محلي رهدا ميل أن شقاء جوجنا أنت بدنا مشغول الدنيا اللي بيجرو حلقة يا وسلام إن أنت بدن لتكدو وقتي كذب أحسن أمام حالي رهدا عرير إجاشو أيضا مسكحة إيش الجوج لتكدو مركز سيدا والله عليه الخير الله سيو كنتي أب ومهد علينا يا ضد قبل قابية هوشن كارية إلهي أجرها كسيو لما أنت كسوق بشان إلهي سبحانه وتعالى أجر كاسي هوا فجيو إخلاصنا إلهي هنو إرزاقه وحاوقاتان حتى الشقة الدنيا إخلاص أباهن الشقة اللي قبنا الدنيا إخلاص يوحي أباهن تهي إن مارتي إتقان العمل الشقة دي والله الصبح مركا إن شاء الله تعالى يعني كنا رينين واسدة ولكن وشاقي قف لبو الله كعبسي آيات كقولي سنكرتا أرنتاس قف لبا والله قربا قف اللي قربين ير وين مجرو الله كعبسي آيات الدول كقولي سنكرتا آخرنا كقولي سنكرتا واسدة الله شاقي فتنة ما يرى ماشا أنا يرى ليه شهودينا وكعيسى وحلقة أضياشة إذا حوالها سود دارين لكن اللي يرضي وإن إسلوران أخلاق ده يطلقن كأن لنا إلهي هيدا حسوسيو وحمهمة الدنك وحيالها كجد ونعني يربى وكلا بركة اللي تجي. حكمنا إني سوماليين يجين بالنظيف وحيابها اللي يركع ودك هتجي وتقدر إنسانية إني سامعين سوماليين ولي ده المؤمن مركب في إمبريشن يعني دولة متكافئة. أيضا عالم الكونتينز بريء وهوش التنسيق صعبته وحيابها خلط وح الشرعي حسون جدوده كان إلى استقلال إلى الجبين هل قدر الأطم بمركوحية هاي وكل ذا نمر اسمه شيئنا حوايا هل قدر كل ذا الصومالي وحاسف في عنهم أكل الله مساجد وحقوقنا مساجد مالنا كفرا لمن أفريكان ولا خير حسين وست أفريكان أيام نقولون حتى عربي أنكو أفريكان ما يوصلنا لهذه الصومالية وده في الدين وبدوّع والدين تسفي عنه يقال مركب وفي رحت وست أفريكان أصحابي وريانو عن الجربة شغالة سنة أبوه كلها إنه تكسبوا بحين إنه فوشان دمبوان وأن السوقية اللي هو إيمان والبو وإنت إلهي كعصر لكم المساجد كسرت السنة وضفي بدك كنا بدك هدي أن أود فعلا نواء أودا مساجد كأن إيمان واحد في عوّة واحد إلهي تدرس وديسه الدون وعلى وارد إلهي ملك كاسين مركز وحصلت الدار بين أو ضمبين مساجد حل يبادو
qof kasta uu maskaxda geli xiriirka aad ilaahay kaa dhexay mar kasta uu strong yahay noloshaada ganacsigaada reerkaada ilaahay waa barakayna waanu ku wareegina marka qodobkaas waa qodobka u dambeeyo haddii aan warka dheeray raalli aan la ahdo waxay iga ahayd bas intaan wax isku sheegno marka wixii aan saxay nafteeda ka ahaad wixii aan dambada sheegaan iyo waxay ka ahaad nafteeda waan mahadsantahay sida quruxda badan maaragta noogu hadal jeedisay adiga weliba ka warbixiya taariikhdii hore ee magaalada Gwanjo iyo waxyaalaha Gwanjo ay uga duwan tahay magaalooyinka kale oo ah maaragta isku xirnaan iyo Soomaalinimo oo wax maaragtay ka sukayo Soomaalinimo aysan jirin taasna maaragtay Cabdullaahi Kalimaan dhamaantii waan wada ogsoonaa waana wada taakiidinaynaa dhalinyarada cusub waxaa leeyahay maaragtay meeshani lama kala xigo Soomaali magac Soomaali qofka hadduu wato hadduu dhib soo gaaro iyo haddii maaragta wax ka qaldamaan inta Soomaalidu inay wax diyaar u tahay in la caawiyo la garab istaago waxna lala qabto maanta meeshaan iskugu nimid ama aynu joogno waa maqaaxida Mint Garden oo ka furan magaalada Gwanjo ee dalweynaha China maqaaxidan maaragta milkiyadeeda waxaa iska leh ama fikirkeeda keenay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka shaqaysay in maaragtay ay furaan meel laga heli karo cunadii Soomaalida ee aan idii dhaqanka u lahayn milkiilaha maqaaxida oo ah maaragtay Maxamed Arje wuxuu dhaxda u xirtay inuu maaragtay cunadii dalkeena hoysan ku heli lahayn waliba anagoo joogna bariga fogay Shiinaha waynu ku maadsanyihiin Mint Garden sida wanaagga leh ee maaragtay noogu suura gelin waliba maanta intaanu Soomaalida iskugu timaado isla markaana maqaaxida lagu casuumo waxay kaloo maqaaxidu diyaar u tahay service dheerina ku bixinaysaa reerarka meelaha degan reerkii casuumad qaba in cunada inta loogu diyaarinayo iyadoo diyaarsan cunada guriga loogu geynayo kaliya ma reerka u baahan doona cunada dadka inay u kala guraan maaragtay taasna waa service dheeriya oo ay maqaaxida qabanayso xafiisleedoo kale maaragtay haddii u baahdaan maaragtay in delivery fadhigooda loogu keeno maqaaxidu waxay diyaar u tahay in maaragtay qof walba meeshiisa loogu geeyo waxaana dadka arooska cusub maaragtay uma baahan doonaan maaragtay cunadii carbaha iyo bifeeg aan ku wareeri jirnay Soomaaligu sabti Soomaali oo ku yaqaanay ayuu meeshan ugu imaan doonaa insha Allah taala waxaana filaynaa maaragtay inaan dhamaanteen intaan Soomaali maanta haddaan walaalkeen fikirka cusub keenay idea cusub la soo baxay maaragtay doonaya maaragtay inuu tartan la galo maaragtay maqaaxiyaha kale carbeed ee ku yaala magaalada Gwanjo inaan wada garab istaagno meel walba waxaan ku bixin lahayn inaan saacad walba walaalkeen garabkiisa taagnaano si aan u muujino inay meesha tahay maqaaxi Soomaaliyeed Soomaalina hadday isku iiliso waa la yaqaanaa halkii gaarayso waxaan filaynaa dhamaantiin inaan walaalkeen soo wada garab istaagi doono maqaaxidana waa maqaaxidiinni kulligiin ku soo dhawaada fale tafadal shukran Akui Amen.